labada sarkaal markii hore sarkaal iyo sarkaal xigeen bay ahayn maanta waa laba sarkaal maxamed wacays allaale iyo maxamed cali barre oo goobtan ku sugan falkii geesinimada lahaa ee ay ka geysteen samata bixintii iyo gurmadkii daadkii ku soo jabay degmada Dila taas oo ahayd mas'uuliyad iyo isxilqaan dheeraad ah iyagoo oo aanu jirin amar lagu siiyay inay daadka galaan iyo inay dadka samata bixiyaan waa go'aan geesinimo leh oo iyagu ay dadkoodii iyo bulshadii ay amnigooda ka shaqeynayeen ay garashadoodu keentay arrintaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go'aansaday inuu siiyo abaalgud iyo darajo labadaba inuu isugu daro taasoo lagu niyad gelinayo iyagana loogu abaalgudayo ciidamada kalena lagu guwaabinayo labadii bilood ugu dambeeyay marka dilka taliyaha laga tago waxa ka dhacay dalka 6 dil baa ka dhacay 6 dil baa ka dhacay 6daa dil afar kamidi hal week ayay dhaceen oo weekii ugu dambeeyay ay afar kamidi dhacay 6daa dil 5 ayay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga sunnaha nolosha ku jirta in la isdilo shanta afarta dil u dambeeyay afartiba gacanta lagu dhigay labadii horena mid baa baxsan waxaanu ka hambaleynaynaa taliyaha iyo ciidamada amniga ee kala duwan gobolada kala duwan jooga dhamaan sida geesinimada leh arrimaha uga qayb qaateen sida amniga dadka u sugayaan dadkaana waxa la horkeeni doonaa gacan ku dhiglayaasha cadaaladda iyo garsoor madax bannaan ciidamada geesiyaasha ee hawlaha fuliyay taliyuu ka waramayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana wuxuu gudoomiyay inuu abaalgud siiyo ciidamadii hawlgallada fuliyay dhamaantoodba si niyadooda loo dhiso muxuu ahaayay ciidamada guud ahaan niyadooda loo